tan iyo markii xamdoog uu iscasilay suudaan ma lahayn hoggaan rayida oo wax ku ool ah iyadoo burhaanna uu u shaqaynayay sidii madaxweyne dowladeed oo dhaba horraantii 2022 burhaan iyo xamedi waxaa looga tegay hoggaanka dowladda iyagoo leh awoodda ay ku hagaan kala guurkooda dimuqraadiyadda wadahadalladii dhacayay 2022 oo dhan ee ku saabsanaa mustaqbalka maamulka suudaan ayaa ku dhammaaday heshiis December 2022 heshiiskaas oo dhigayay saldhigidda muddo 2 sano oo looga sii gudbayo hoggaanka rayidka iyo doorashooyinka qaranka suudaan muwaadiniin badan ayaa diiday qorshaha sababtoo ah waqtiga ayaa si adag loogu muransanaa waaxda amniga ayaa haysatay qaar ka mid ah awoodaha dowladda tan iyo wixii goorta ka dambeeyay xaaladihii kala guurka sababo kale waxay ahayd ku guuldarraysiga in burhaan xamedi iyo saraakiishii kale ee waaxda ciidamada ay mas-uul ka noqdeen rabshado mar kale ka qarxay oo weliba socday ilaa December ugu dambayna dhaliyay bartilmaameedsiga dibadbaxayaasha qodobada ugu muhiimsan ee la isku hayay ayaa soo ifbaxay markii dowladda ku-meel gaarka ay bilowday inay ka gorgortanto ama gorgortan ka keento qorshe cusub waxa ugu muhiimsanaa doorka xamedi iyo RSF heshiiska wuxuu xamedi u qaaday si la siman burhaan isagoo ka dalacsiiyey ku-xigeenka guuda heshiiska wuxuu sidoo kalena ku baaqay in ugu dambeyn RSF lagu daro ciidamada qalabka sida ee suudaan ee sharciga ah ee hoggaanka rayidka si kastaba ha ahaatee heshiisku ma uusan cayimin waqtiga kama dambaysta ee lagu darayo RSF ciidamada xoogga dalka suudaan sababta ah khilaaf u dhexeeyay burhaan iyo xamedi dartii labada hogaamiye waxa ay seegeen waqtigii kama dambaysta ahaa ee horraantii 2023 si loo go'aamiyo shuruudaha hirgelinta heshiiska taasoo muujinaysa xiisad ka taagan xiriirka RSF iyo ciidamada xoogga dalka suudaan iyo mustaqbalka labada ciidan ee hoos yimaada dowlad la doortay bilihii xigay loolanka awoodda ee u dhexeeya ciidanka xoogga dalka ninka hogaaminaya ee suudaan burhaan iyo RSF-ka hogaamiyahooda xamedi ayaa sii waday inuu hakiyo dadaalada kala guurka ee dalka horraantii April ciidamada xoogga dalka suudaan ayaa ku soo ururay wadooyinka Khartoum askarta ama maleeshiyaadka RSF-na waxaa la geeyay guud ahaan qaybaha gobolada suudaan April 15keedii qaraxyo isxigay ayaa ruuxay Khartoum oo ay wehliso rasaas culus hoggaanka ciidanka xoogga dalka suudaan iyo RSF labaduba waxay isku eedeeyeen in marka hore midbakan kale uu rasaasta ku soo riday kulug lahaanshaha kooxda Wenger iyo saamaynta militariga shisheeye gaar ahaana Imaaraadka Carabta ayaa sii xoojiyay xifaaltanka xudunta u ah dhibaatada suudaan dagaalka Khartoum wuu sii socday dhacdooyinka rabshadaha ee ka dhacayay dalkaasi oo dhanna way sii kordhayeen oo ay ku jirto Darfur dilkii gudoomiyihii galbeedka Darfur Khamiis Abakar bishii Juun 2023 oo ay ku badan tahay inay geysteen dagaalyahanada RSF dilkaas kaas oo calaamad u ahaa sii kororka rabshadaha guud ee deegaanadaas Abakar ka hor dilkiisa waxa uu ku eedeeyay RSF inay dib u soo cusboonaysiiyeen weerarada xasuuqa ee ka dhanka ah dadka laga tira badan yahay ee Darfur bishii Juun 2024 warbixin ay soo saareen hay'adaha aan dawliga ahayn ayaa lagu sheegay in ka badan 235 tuulo dab la qabasiiyay kuwaas oo ku yaalay koonfurta Suudaan iyadoo ay dabka qabasiiyeen maleeshiyaad ku sugan Darfur tan iyo markii dagaalka uu qarxay bartamihii April 2023 dhowr hay-adood oo aan dawli ahayn oo ay ku jirto Human Rights Watch ayaa diiwaangeliyay caddaymo muujinaya xasuuqyo badan oo ka dhacay Suudaan intii uu socday dagaalka taasoo keentay eedeymo ku saabsan isirbaabinta lagu beegsanayo qowmiyadaha qaar iyo dambiyo dagaal oo soo kordhayay horraantii November ciidamada RSF iyo maleeshiyaadka xulafada la ayaa ku dilay in ka badan 800 oo qof weeraro maalmo badan socday oo ka dhacay Ardamata oo ah magaalo ku taalla galbeedka Darfur weerarkan waxa uu ka turjumayaa kor u kaca cusub ee dilalka qowmiyadaha ku salaysan ee lagu bartilmaameysanayo qabiilka Masalli ee galbeedka Darfur
madaxa sare ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR Filippo Grandi ayaa waxa uu ka digay in rabshadaha hadda socda ay astaan u yihiin xasuuqii uu Maraykanka aqoonsaday ee Darfur kaasoo lagu dilay qiyaastii 300 oo kun oo qof intii u dhaxaysay 2003 ilaa 2005. bayaan ay soo saartay qaramada midoobay bishii Janaayo ayaa lagu sheegay in inta u dhaxaysa 10,000 iyo ilaa 15,000 oo qof la dilay 2023 sababo la xiriira rabshadaha qowmiyadeed ee ay sameeyeen kooxda RSF iyo xulafadeeda galbeedka Darfur ka howlgasha. intana qaybta labaad ee warbixinta guud ee aan kaga hadlaynay arrimaha khilaafka iyo dagaalada colaadaha Suudaan ayaan ku hakinayaa waxaan sugnaa waa qaybtii saddexaad iyo macluumaadkan.